dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal waxay ahaayeen garan maaye aniga oo wax ku sii jeeda fadhiyana dukaamada internetka laga gala midkood ayuu isoo abbaaray wuu ii soo dhowaaday waa inan yaroo 20kii galay ama ay wax yaray uga dhiman yihiin isaga oo aan leexleexan ayuu saraan gaaban kadib su'aal igu soo tuuray 2 nin oo maansayahanadii hore ka mid ahaa intuu magacyadooda xusay ayuu yidhi adeerow wiil baan isku qabanay hebel iyo hebel keebaa gabay badnaa oo sidaan u gartay uu ula jeeday labada keebaa gabaysanaa wixii aan ku hawlanaa intaan faraha ka qaaday ayaan inankii u soo jeestay haddii aan su'aalo dhowra weydiiyeyna waxaan ogaaday in isaga iyo wiilka kale toonihii aanay suugaantii hore wax quman kala socon sababta ay labada maansayahan ugu murmeenna ay qabyaalad un tahay mid walba kuway isxigeen sidaas bayna ugu kala hiilinayeen welibana ay 7 idil ugu kala maqan yihiin intaasiba markay ii caddaatay ayaan ku idhi maandhow adiga iyo saaxiibkaaba cudurkii baa idin soo gaaray wuxuuse ku roog yahay inuu weynaan kugu galee idinka yaraan buu idinku hareeray weli idinka oo curdana ayay qabyaaladii idin taabatay bahashii soomaalida jilbaha u dhigtay ee asaageed ka reebtay ayaa dareemadiinna ku soo biirtay haddii kale ma waxaad u kala hiilin lahaydeen 2 maansayahanoo 130 sano ka hor aakhiro u hoyday ma waxaad isku seegi lahaydeen 2 maansayahan oo aabbayaashiin iska daayay aan awowayaashiin midkoodna nolol ku soo gaarin waayeelka ba'ay haddii aanu idin bi'in miyaad la kala safan lahaydeen 2 gabyaa oo maansadii ay ka tageen aynaan waxbana ka sheegi karin haddii la idiin sheegana aynaan waxba ka garan karin cabbaar gibina kadibba inankii yaxyaxda iga muuqday waxaan dareemay in hadalkayga ay wax kaga duxayaan markaas baanu ku ballannay berri fog inuu isla meesha iigu yimaado isaga oo ay wada socdaan saaxiibkiisii 2 gabyaa dartood ay ku kala irdhoobeen waa siduu ballanku ahaa ee maalintii xigtay ayaa waxa isoo gaaray inankii iyo saaxiibkii oo mooggan heshiisa dabadeedna intaan isku dayay inaan u caqli celiyo ayaan ku idhi horta hore 2 gabyaa markii la kala saarayo ma aha in la isweydiiyo keebaa gabay badane waxay tahay keebaa gabay wanaagsan in la toydo taasina waxay caddaan kartaa 2 maansayahan haddii ay isku waa noolaayeen wixii ay tiriyeenna in doora laga hayo markaas oo keliya ayaa la kala sarraysiin karaa iyada oo la cuskanayo kolba jawaabaha ka soo noqda su'aalahan ay ka midka yihiin 2 keebaa af Soomaaliga badiya ujeeddada tixihiisa keebaa erayada ku habboon u heli og keebaa tuducyada ugu tirada yar kaga gungaari kara meesha markaa ay diiraddu u saaran tahay midda u daranse waxay tahay wax la iskama tiriyee 2 keebaa maansadiisa ku mariimi kara halmuceedyo shiiqsi leh iyo halku dhegiyo murtida ay xambaarsan yihiin awgeed loogu maahmaaho allah u naxariistee aadan carab gabyaagii weynaa ee la oran jiray isaga oo ku faanaya murtida maansadiisa waatuu yidhi inkastoo miraha laga sinmo iyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadha iyo anigu maahmaahe miisaan haddaan hadal lahayn waa macno la'aan gabaygu waa hibo macnaheedu wuxuu yahay waa deeq uu eebba dadka qaar siiyo inta badanna uurka hooyo lagala soo baxo ma aha wax sida xoolaha loo taransado oo tabta hantida kale loogu hawshoodo dabadeedna hodan laga ahaado waa qalab waayo aragnimada uu nolosha ka helay uu gabyaagu ku soo koobo waa runo marka hore tixihiisa isaga ayaa tiriya ha yeeshee afkiisa markay ka soo baxaanba waa lala yeeshaa waxay isu rogaan hanti dadweyne oo aan la kala xigin shisheeye iyo sokeeyaba cid walba ayaa adeegsata cid walba ayaa ka faa'iido oo hadal ay jeedinayso ama ay qorayso ku cuslaysata cid walba oo tala u baahan baa wax ku qaadata kuna waantowda cid walba ayaa iskeed ugu raaxaysata miro iyo murti
haddii gabyaa hebel la yidhaahdaa uu ku wanaagsan yahay geyiga uu ku dhaqan yahay kuma uu ekaadee meelo ka durugsan ayaa magaciisu gaaraa markaas baa dadyow aan ku af ahayn tixihiisa u bogaan oo inta tuducyadiisa macaansadaan afafkooda u rogtaan sidaas bay maansadiisu caalami ku noqotaa tusaale waxa u ah William Shakespeare oo Ingiriis ahaa Dante Alighieri oo Talyaani ahaa Goethe oo Jarmal ahaa Axmed Shawqi oo Masar u dhashay iyo qaar kale oo magacyadoodii inta dagaamadoodii ka gudbeen xagga caalaminimada uga xubsiibtay tayada sare ee gabayadooda markii lala asqaraaray ayay isu bedeleen qaar murtidooda la wada tamadiyo mar walbana dunida wax akhrisaa ay u wada heelan tahay meel walba ayaa looga sacabtumaa taasoo ah qoraa iyo gabyaa ku ahaadaba darajo inuu gaaro uu hal abuur waliba ku taamo labadii wiil waxaan intaa u raaciyey sidaan filaayo su-aasha maankiina ku wareegaysaa waxay tahay raggaas rag u dhigma Soomaalidu ma leedahay aragtidayda jawaabtu waa haa waxaana markhaati u ah ilaa hadda maansadayda inta ay shisheeyuhu afafkooda u rogeen siday ugu bogeen iyo markay midda caalamiga ah barbar dhigeen siday ugu qireen inay ka horrayso ama ay la siman tahay mooye in sinaba aanay uga hoosayn qamaan bulxan oo anigu gabyaaga murtida aan ku magacaabo bal ka warrama haddii gabayadiisa afafka nool ee dunida loo rogi lahaa miyuu ka gaabin lahaa maansayahanadii aan soo magac dhabay iyo kuwa lamidka ah ee had iyo goor ummadahoodu ay wadwadaan madal walbana ay la taagan yihiin intaynaan su-aasha ka jawaabinse bal ila eega qaar ka mid ah gabayadii uu inooga tegey meelisi aan tusaale ahaan uga soo goldooxay isaga oo ruuxa laba wajiiraha tilmaamaya markaana cali dhuux u jeeda qamaansow ninkii odhan jiray ma aha baadida nin baa kula dayday daalna kaa badan ee aan doonahayn inaad heshana daa'in abidkaaye dadkuna moodi duul wada socdaan wax u dahsoonayne dallana ma laha aakhiro haddii loo kitaab dayo marna isaga oo ka faalloonaya isbedbedelka waayaha iyo sida ruux shalay sabool ahaa loo hodmiyo mid hodan ahaana loo xantiiriyo sow ninkii yidhi ma ahayn adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaaye halgalgalatay waxa looga dhigay yacni nuu harine marunbaa sabool la harqiyaa hodanna deegaaye mar kale isaga oo ina baraya kolka talada kugu habboon lagu seejinayo sida laguu ilduufiyo sow ninkii odhan jiray ma ahayn hadday sababigeli maanka waa la iska siibaaye sarbee malaga baa laga dhigaa saacaddaad dhimanna solina maysid taladii ilaah see ku leeyahay mar kalena dhibaatada colaadda iyo dagaalada isaga oo dadka uga digaya qamaansow ninkii yidhi ma ahayn intaad caano iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigo cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin marna isaga oo wax aan wax ka soo qaad lahayn ka dhigaya aqoontii badnayd ee sayid maxamed cabdilla xasan loo wada qirsanaa sow ninkii odhan jiray maaha wax cadaabka loo hora dhigaa culimo duub weyne isagoo cibaadoon hayuu camalkii eedaaye cirsiguu ka naar mudan hayaa ina carrow gaale isla sayidka isaga oo ku duraayo gacan kulaylkii uu dadka ku maamuli jiray uguna dardaarwarinaya mar dambe inuu dhiggeed mutaa inay suuragal tahay sow ninkii yidhi ma ahayn kobtay 10 nin joogtaba haddaad turuqda kii aada ka dambaad signiin tahay inay kugu tubeeyaane wallee ina ragow tala adduun taada uun ma aha mar kale isagoo qorshaha horreeyey ee eebbe iyo talooyinka aadanuhu maaminayo isbarbar dhigaya awaakiilahaa waxaad aadanow maagan tahay adiga maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaane waxaad adigu miihaalato iyo maluhu waa been allah u naxariistee ku dhowaad 90 gu ayuu qamaan mootan yahay 1928 ayaa aana qabiil awgeed loogu dhugtamay sidaan rumaysnahayna murtidii uu reebay cid uu kala dardaarmay oo uu si gaara u dhaxalsiiyey ma ay jirin sidaa darteed Soomaali oo idil baa iska leh Soomaali oo idil bay ka dhaxaysaa
kuna faani karta. macnaheedu wuxuu yahay lama kala lehee waa la wada leeyahay. guud ahaanna waxaa soomaalida ku habboon isaga iyo raggii la ayniga ahaa dhaxalkii ay ka tageen inay ilaashato si maalmaha dhaqamadooda ay ummaduhu u soo bandhigayaan ay iyaga ugu shirtagaan. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebba idmo.